kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha Nabad TV meel kasta oo aad caalamka daafihiisa ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta saxafiga ah oo aad alaaba uga barateen jimco walba inay idinkaga soo deyno Nabad TV. barnaamijka xogta saxafiga ah waxaan ku qaadaa dhignaa wariyayaasha iyo nololaha adkaa ay kusoo shaqeeyeen wax ku barteen iyo waxaan wax ka ogaanaa waxyaalaha shakhsiyan wariyaha uu jecel yahay iyo waxyaala lamida. barnaamijka mar walba waxaan ku martiqaadnaa wariye aad wada taqaanaan oo saxaafada ku jiro si idinkana aan wax uga barantaan annagana aan wax uga faa'iideysano. barnaamijka maanta waxaa marti iigu ah oo aan rabaa inaan maanta wariyaha ku casuumay aan u soo xushay uu yahay Irshaad Cumar Manifesto oo ah wariye weyn oo ka soo shaqeeyay dhanka iyo Somaliland. Irshaad ku soo dhawow TV-ga Nabad. inaad baad mahadsan tahay asmar iyo sidoo kale adinka iyo TV-ga iyo sidoo kale akhyaarta kala duwan ee barnaamijka ay ka qayb qaadanaysa waan dhawahay mahadsan tahay markale. Irshaad marka hore barnaamijkan waxaan ku baranaa wariyayaasha iyo marxaladaha kala duwan ay ku soo shaqeeyeen haddii aan wax ka ogaano horta waa kuma Irshaad. inaad baad mahadsan tahay asmar magacaygu waa Irshaad Cumar Cilmi loo yaqaan Irshaad Manifesto waa magac family name ah waa magac aabba iyo sidoo kale ilaa awow ilaa familku iska wada leeyahay naga dhaxeeya waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan ku barbaaray gobolka Gibiley oo aan wax ku bartay waxbarashadii hoose iyo waxbarashadii dhexe waxbarashadii sare waxaan ku soo qaatay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadibna waxaan ku soo noqday magaalada Hargeysa markaan ku soo noqdayna jaamacad baan ka galay jaamacad Almasleeda halkaas wax ku bartay markaan jaamacadda dhameeyayna waxaan u soo baxay Mareykanka sidii aan u soo galay ku yimid 2015 ayaan wali u joogaa. Irshaad haddii aan ku weydiiyo saxaafadda goorma ku soo biirtay goormayse kugu dhalatay inaad noqotid qof wariye ah? waxaan oran karaa waxaan ku soo biiray 2012 marka laga reebo sanad ii ahaa tababar ama aan la shaqeynay television local ah ama aan isagu caalamka laga daawan oo marka la oran jiray Somaliland Space Channel waxa igu xigay markaa inaan imaado televisionka Home Cable TV 2012 oo ilaa ay haatan ilaa maanta aan la shaqeynay wariyaashiisa kamid ahay oo maamulkiisa kamid noqday welina aan la joogo waxa igu dhaliyayna waxaan maraynay inay ahayd hobby aan u lahaa ama aan jeclaa markaan yaraaba kulli waxaan iska jeclaa wariyanimada iyo askarinimada inaan askari noqdo ama inaan wariye noqdo ama sidoo kale ciyaariyahan noqdo saddexda mid kamid oo aan jeclaa baan noqday oo alxamdulillah markii dambe ما شاء الله maadaama saa ii sheegtay wariyanimadu ay ahayd wax hobbigaaga ah oo aad jecleyd oo markaa yareed waxyaalihii aad jecleyd ka mid ahaa markii aad ku soo biirtay ee aad noqotay wariye caana wax caqabada ma kala kulantay ama caanimada ha ahaato ama ha ahaato shaqadii aad markaa ku guda jirtay? wallahi horta meeshaan ka yimid oo Hargeysa ahayd waa meeshan kaliya oran karno warbaahintu waxay ku haystaan xorriyad fiican ka ugu badan waa ka inta la xidho saacada xidhnaada la soo daayo oo dhibaatada ugu badan oo mandaqada ama geeska ka taagan horta inta badan anagu ma aragno maanaan arag ta kalena waxa weeyaan wariyaasha inta badan qodqodka badan ee siyaasadda iyo gudaha u sii galana miyihiyo aanu qayb waxaan u badnaa dhanka entertainmentka loo yaqaan ama dhanka maaweelada oo haddii ay tahay barnaamijyada wargeysyada maxaan ku dhahaa barnaamij ciyaaraha waxyaabo noocaas aan u badnaa oo dadka doodaha iyo xaalad abuurka markaa tahay baa inta badan aad oran kartaa waxaan la kulmayaa waxyaabo dhib badan barnaamijyadaasina horta maan sameyn jirin baa oo dadka u badan maan ahayn marka wax aan idhaahdo carqalad baa ku soo martay waxaan oran karaa markii aan soo baxayay oo tartan adag jiray maadaama TV weyn aan nimid dad fara badan ay joogaan qaariga sii horeeyeen qaarna shaqada ay doonayaan ayaa waxaan xasuustaa in aan ku jiray challenge adag oo isxoray ah si aad u soo baxdid oo aan ka soo bilaabay heer farsamo kaamarada oo hadana booski kaamarada banaanaan kaamarada galo markii dambe aan wariyanimada banaanataan helo oo ilaa heer maamul markii dambe aan sii gaaro marka intaas waxaan ahayn oo maanta oran karo dhib baad ka soo martay ma u malaynayo mid kale TV-ga ka shaqeynayay haddaan mid yaraan ku darsado Home Cable TV wuxuu kamid ahaa meelaha dhifta ah ee mushaar laga qaato marka alxamdulillah intii aan la joogay waqti fiican baan la soo qaatay oo aan shaqada uga fikiri karo oo maskaxdayda tacabkayga aan shaqada gelin karo si aniguna aan u soo baxo shaqaduna ay u noqoto mid meel marta oo yacni lagu gaari karo waa gartay markaan ka soo tago dhankii challenge-ga ahaa ee aad ku soo bixaysay markaad joogtay Hargeysa ee aad shaqooyinkaaga ku muujin jirtay marka halkan timi ee Mareykanka aad timi
maxaa isbedelay saxaafadii shaqadeedii qaabkii aa u shaqayn jirtay ma ka sahlanaatay mise tii Afrika iyo tan waa weli waa un dadaal iyo adiga un kugu xiran waa mahadsantahay Asmar horta wax weyn oo isbedelay ma jiraan laakiin nolosha isbedeshay oo wax walba halkii sidii ay taagnaayeen hadda ma taagna marka TV-gu soo baxayay aad baan nolol xiisinaya oo warbaahinta kale ee wargeyska iyo radio ay ka mid ahaayeen baan suuqa ka saaraynay hadda TV-yadina waxaad moodaa in suuqa laga saarayo ay soo baxeen social media marka horta isbedelkaas ayaa hadda wax la taaban karo sheegi karo isbedelka social media ka jira de qurbahoona nimidna wadagto laba nololood weeyaan marto noloshii saxda erinaysayo media wuxuu ku noqonayaa part time ama shaqo waqtiyada aad firaaqada leedahay aad yani bulshada la qaybsan kartid wixii xoog ee cusub ay soo heshay de wariyaashuna waa laba nooc oo shaqeeyaan waxa weeyaan midna waa xogtu keena midna waa tabiye marka anagu horta waxaan ku shaqeynaa hadda waxay noqotay inaan wax u tabino sax oo dadka xogta soo qaada ma nihiin oo dadka ugu adag iyo shaqada ugu adag horta waxay taala Afrika ama waxay taala wadamada aynu ka nimid oo qof baa la doonaya inuu meel xog kala soo dhex baxo oo horta waxa ugu dhibka badan ee saxaafadda marka laga shaqeynayo waxa weeyaan sida xogta aad ku qaadan kartid inaad wax qaadi kartid wax meel yaalla intaad qaadid intaad meel geyso inaad soo tabin karto gudbin karto oo waxa ugu adag ee laga shaqeeyo media aadiyad marka tiina hadda ma taalo intaan meel tagno horta wax lama soo baxno laakiin waxa caalamka yaalla intaad eegto meel walba qoraal baa laga dhigay wixii baa la fududeeyay aad waxa akhrisato wixii muhiim ah ama micna dadka u sameynaya inaad la wadaagto mahane ma jirto horta waxyaabo badan oo aan ku oran karo maanta challenge adag baa qurbaha yaalla ama kii mid ka duwan oo waxa kaliya yaalla waxa weeyaan waa nolosha isbedeshay iyo waayaheedu marka waxaan dhihi karnaa tanaad tii markii loo eego tanaaba ka sahlan oo resource badan baa haysataa tanaa ka sahlan ha waa gartay waa runta wariyaasha xagga jooga waxay ku shaqeeyaan shaqo adag iyo waqti adag marka ayagana waxaan rajeynayaa insha Allah inay heli doonaan fursadahan haysano ayagoo meeshoodii jooga ay heli karaan qaabab fudud ay ku shaqeeyaan su'aashayda kale haddii aan dib kuu celiyo waxaad tiri Muqdisho aan ku dhashay markaan ku arkana waxaad u egtaa nin reer waqooyi iyo Hargeysa ku dhashay lahjada kala duwanaanta iyo waxaas maadaama aniga Muqdisho aan ka imi Muqdisho meeqa sana ka soo tagtay maxaa ka xasuusataa adoo jira ma adoo yara ka timi wallahi waan ku dhashay laakiin waxba kama garanayo kuma dhaqmin waan ku dhashay kaliya inta badan nolosheeda Soomaaliland baan ku qaatay gaar ahaan waxaan ku soo barbaaray oo ilaa dugsi milcaamad oo dugsi hoose dugsi dhexe aan ku qaatay gobolka Gabiley magaalada Gabiley baan ku qaatay oo aan deegaanaha ka soo jeedo intii dambeena markii aan waxbarashada heerka sare aan ku soo qaatay Nairobi-na Hargeysa u soo wareegay Hargeysana shaqo uma ka bilaabay iyo part time waxbarasho jaamacadeed laakiin Muqdisho waan ku dhashay dadku nimo moodaan dee wanaad ku dhalatay ma ahane hadii Soomaaliland ka soo jeedo afkiina oo inta badan halkan uu ka soo jeedo uu lahjadeedii yahay dadku inta badan ma dareemaan laakiinse waa maadaama uu qolqodo waxyaabaha hadda la sii ogaan doono ma wax badan anaga faa'iido inoo tahay inaan ogaano inaa ka timi Muqdisho asalkaaga lagu dhalay marka waxaan dhihi doonaa ninkaas isku meel aan ku dhalanay ma santahay irshaadow haddii aan kula kaftamo maalmahan dambe social media waxa haysteen in la yiraahdo taakay oo afar xaas leh ninkaas wuxuu ahaa asalkiisa nin wariye sideen oo kale ah maxaa ka aaminsan tahay xaasaska badan ee la guursanayo wallahi horta waa su'aal aad muhiim ah xaasaska badan ee la guursanayna horta qalad kuma jiro waa wax diintu banaysay marka hore waa gartay de qofkan guursanaya iyo qofkan la guursanayaana waa qof adiga iyo aniga iyo dadka kaleba ka fikir duwan waa gartay laakiinse sidaan u arko waxaan u arkaa wax aan qarad ahayn wax aan dembi ahayn wada yani jirtay inuu qofkaasi ku tallaabsaday balse waa qaabkii loo dhigo baa horta ka dhigaya isagoo ujeedadu ka leeyahay garan mayno laakiin ani ahaan hadday igu soo noqoto waqtiga haatan la jooga iyo xaaladaha lagu jiro iyo noloshu yani noocay tahay marka la arko dee waxaan ku talin lahaa nin walba midda Ilaahay kugu asturay hayso ka soo baxay iyadoo 2 iyo 3 iyo 4 ka dhigo aad iyo aad warun horta xaasaska badan waa mas'uuliyad kugu kordhaysa ma aha wax easy ah marka waxaan rajeynayaa dadka xaasaska badan leh inay mas'uuliyadda ay qaadeen ay ka soo bixi karaan sida loogu talagalay iska guurso lama dhihine mas'uuliyad culays ayaa la dul dhigay haddii aan u wareego xagga iyo sportiska maxaa jeceshay ciyaaraha noocee jeceshay ma kuwa Mareykanka laba football baa jirta marka halkan imiyaan bartay midna waa tennis oo waxa la yiraahdaa halkan soccer laga dhahaa football lama dhaho oo football gooniye haystaan
marka adigu ma qaybaha Yurub baad taageertaa wali Afrika waxaan taageeri jirnay mise waad isbedeshay markaa may Mareykanka asmar waa run laakiin weli anu halkii waxaan joogaa wax badan ma soo maqlin mogti laakiin baashaas baa weli laga reebi lahayd oo sakarkii ma ku eka waa gartay inaan ciyaaro iyo inaan daawado sax teamkee jecesha inaad daawatid aad taageertaa koox la yidhaha Manchester City oo ka ciyaarta horyaalka dalka Ingiriiska waa gartay kubadda gacanta ka waran kolayga ha ahaato tenniska kuwa wallahi wax aan ka aqaan male ma daawado laakiin meelaha maqaayadaha inta badan Mareykanka waa loo badan yahay waa mar la daawanayo NBA iyo mar la daawanayo taakale footballka inaan halkaan ka arkay iyo dad boodboodaya qayqaynaya marka marka qaar baan silaaniyo talow adigana ma saasoo kale lagu leeyahay marka boodboodaysid waa inuu dad waana baagtida ka qoran yihiin wax aan fahmin qofkan ku cararaya ama ku boodboodaya marka taa waxba kama aqaano haddii aan u dhaqaaqo dharka dooqa iyo kalarka noocee jeceshahay waa su'aalo iska aan weydiino dadka wariyaashan ku ogaana dooqyadooda wallahi waxaan jecelahay labada kalar ee inta badan black and white ka waxa ay soo raacay kalarka bluega marka waa intaan u badanahay inta badan labisiyada xidho sax labadaas saddexda kalar baan u badanahay laakiin waxaan khaas u jecelahay inaan xidho white iyo black waa gartay haddii aan kula aado dhanka iyo dalxiiska iyo safarka gobolada Soomaaliya wax ka baxsan hadda anaga iyo ka baxsan Soomaaliya iyo Afrika ka soo maqan marka Soomaaliya goboladee jeclaan lahayd ama ku habmisaa markaad aragtid inaad tagtid wallahi horta meelaha aan aadka u jecelahay ee Soomaaliya inaan tago ama aan arko ama dee horta anigoo Muqdisho aan ku jecelahay inkastoo ku dhashay Muqdisho haddana weli waa meelaha aan isleeyahay bal mar una tagtid halka ka soo dhex muuqatid bal si fiican horta u soo aragtid ilaahay nabada ka dhaliyo inkastoo dagaal ay ka socdaan cabsi badan ay ka jirto laakiin khaasatan magaalada Muqdisho ayaa horta aniga si gaar ah u xiiseeyaa laakiin dhul walba Soomaaliya u degto waan jecelahay inaan mar tago hadii la yiraahdo ma sha Allah su'aal kale ayadana ku saabsan dhanka dooqaaga fanaaniinta Soomaaliyeed heesahooda rag ha ahaadaan dumar ha ahaadaan kuwii hore kuwii dambe tee jecesho ku soo jiidata markaa kaligaa tahay ama markaa istiraada hees daaro fanaankee geysataa dabcan asmari waa su'aal aad u fiican fanaaniinta horta hadda ma kala dhacaan kuwii hore kuwii dambe heesaha ay qaadayaan waxaad moodaa hadday calaacal tahay hadday ammaan tahay iyo haddii ay yacni ku daadisba tahay in ay isku waxun ka hadlayaan laakiinse haddana hadba tii ugu dambayso baan markaa xiiseeyaayo markaa ma u malaynayo wax si gaar ah u soo qaban kara inay jirto su'aasheeda kale irshaad waxa weeyaan waxaan ku soo noqonaynaa qaybta wariyanimada markaad barnaamij diyaarinayo oo qof wariyo uu yahay oo wararka uu diyaarinayo maxaad ku kaalmeyn kartaa oo dhihi lahayd qaabkaas iyo qaabkaas iyo qaabkaas aniga ka soo faa'iideystay idinkuna ka faa'iideystay horta asmar waxa weeyaan wax walba wuxuu u baahan yahay horta waqti la geliyo oo maanta waxaan ka shaqeynaa waa hadal iyo war oo dadka oran mayna dee inaan anagu diyaarada ma kicino moogta injineerna ma nihiin horta waxaan wax weyn maaha hadal iyo war baan ka shaqeynaa laakiin hadal iyo warkaan laga shaqeynayn baa waxay yihiin inay kuwa ku salaysan yihiin xeerarka saxaafadda u yaala wixii lagu baray inaad raacdid imika waxyaabaha ugu muhiimsan in la raaco loo baahan yahay kale waxaa kamid ah marka aad buugaagta saxaafadda aad akhrinaysid ABC waxa la yiraahdo waxa aad soo saartay ama warka aad akhrinaysid inuu yahay war ah accurate balance iyo credibility inuu waxaasi wax la huba yahay dhexdhexaad inaad tahay hadhowna adiguna sumcad aad ka heli karto horta waa ABC warka la raacayo waa inuu 5WH wax la yiraahdo ka samaysan yahay waxaan muxuu yahay goormuu dhacay sidoo ka dhacay why uu dhacay waa what when which where why and how oo kale 5WH bay yiraahdaan inuu warka ka dhisan yahay media haddan iyo programmada TV-da ka baxay haddaad eegtana saddex mid bay soo galaan oo waxa weeyaan inuu yahay entertainment barnaamij dadka aad ku midadaalinaysid education barnaamij aad dadka wax ku barayso iyo inuu yahay information barnaamij aad dadka war ugu sheegayso warbixin ku siinayso waa saddexda marka horta waxaan wax weyn maaha waa wax in la akhriyo u baahan imika waxa ugu badan waxaad arkaysaa dad baan inta badan ila kulmo waxyaabaha iga yaabiya kamid tahay way yimaadaan waxay yiraahdaan kula shaqeyn aan u baahannahay maadaama TV-ga aanu qaaradda America aanu ahay madaxa halkan waayahan ku yiraahdaa qofka markaa wareysanaysid maxaa aad ku jeclaatay media oo kale waa su'aalaha ugu badan interview dadka laga qaado qof baa wuxuu ka oranayaa waan hadal badanahay de media ma hadal badno imika hadii la qiimeeyo labadeena barnaamijkaasi haduu saacad gaaro hadda oo dib loo tiriyo oo warkaaga gaar loo jaro inteedana gaar loo dhigo
laga yaabaa 5 daqiiqo inaad ku yeelato 55 daqiiqo kalena aniga hadlayay marka horta qofka wariye ma hadal badna ee uu su'aal badan yahay waa gartay ta kale qaar baa waxay ku oranayaan lacag baan doonaynaa inaan sameeyo maxaad siinaysaa lacag maya maxaad lacag siinaysaa haddaan shaqada bilaabo sax war walaal meeshaan lacag lagama sameeye bulshadu baan u shaqaynaa aynu bulshada horta wax u sheegno aynu bulshada u shaqayno aynu shaqadeena dhisno markaa lacag laga hadlo marka waxyaabaha ugu badan ee dadka ku keenay waxa weeyaan waa taas marka media waa wax iska fudud waa wax in la akhriyo u baahan hadal badni kuma xidhna laakiin waa inaad xeerarkeeda kala taqaanid akhlaaqdaadu ay dhisan tahay cidna aanad ku xadgudbin يعني قال لما نكمل غسيل كله هدي ما أنت أنا وعيار داوني قاعد يسوق شو هذا نقول لما قفوا فيرس لا عيسى هرت قفوا ما سكر راعي تاولي يقعنا لكن هذا أنا إسكودي أنت إحنا نكون كرتو هنا البرنامج كده هات كنا قطو مركا وحياة قوم يمسنا أوران كرو إن الراعي وعملوا ده هي تاسوي مسمرين واقرتي أن تاسوا ورياش ربع الدين يسوق جلان ورياش كسي جري صحافة ده حد وحيصير دليل أما بقعدين أطلع ده هاي meel fiican baad kaga haysan wallahi wariyaasha horta inta badan aan arko dadka anigu horta aan la saaxiibka ahay ama aan isku dhownahay waa dad anigu waxaan jecel horta inaan la saaxiibo qof wax ka faa'iideeyo sax marka dad fara badan igu agdhow baa jira oo aan wax kala faa'iideysano wax ka qaldanna ma arko laakiin waxyaabo social media la yiraahdo baa jira oo waxa laga yaabaa barnaamij dhan oo caawa saacada hadda labadii haddaan wada hadlaynay haddii loo fiirsado qalad horta lagama waayo waa gartay waa runta laakiin waxa weeyaan wixii qaladeed aragtay feedback lagu siiyo qof oo qaado oo bariyan ay soo noqonin laakiin qaladku waa wax mar walba la helayo bini aadan haddii loo fiirsado nin iyo naag ba malaha is eegay malaha naag gabadha foolxumeed oo furuur iyo xabeel ma garanayo isna si kale malaha weekaayo way la foolxumaatay moogti marka way dareentay gabadhu markaas waxa ku tiri yaan la is eegayin haddii la is eegay bay tiri waa la isla wada foolxumaan doonaa marka horta waxyaabo badan oo qaldan way iska jiraan qaladkuna muxuu u dhacay lama oran kare laakiin waxa loo baahan in laga socon karo in xun iyo in fiican waa leeyahay aniga kula hadlaya diburiyaasha professionalka kuma jiro wali wax baan bartaa qaar bay ka fiican qaar baan ka horeeya laakiin haddana ma aha inaad isqancisid oo tiraahid waxaasaan aqaana ama waxaasaan ahay mar walba hawaad qof baahan sidoo qof baahan waxaad taqaanid ilow wali inaad wax u baahan tahay oo kale isdareensii sax dhex ahow yani akhlaaqiyinka waxa ku dhisan oo ka hadal barnaamijyada dadka anfacaya ka hadal waxaad qaban karin ha qaban laakiin inta ugu badan ee hadda aan dareemo ama aan arko waxa weeyaan qaladkii maanta dhacay oo uu qofkii u dareemo inuu weli isla saxsan yahay sax marka intaas baan iga muuqata waxaan soo gaarnay barnaamijka guntiisa iyo gabagabadiisa su-aasha u dambeysaan rabay inaan ku weydiiyaa waxay tahay maxaad talo iyo tusaale haysaa saxaafadda dhankeeda wallaahi asmar talo iyo tusaale waxaan hayaa waan soo jeedin lahaa gaar ahaan saxaafadda aanu ka tirsannahay ee gobolka Minnesota ama America waa saxaafad aad u fara badan waa gartay waa dad wada khiyaara waa dad aqoon fara badan ilaahay siiyay oo dhanka media ka dhisan sax waxaan u soo jeedin lahaa bal intaynu isku imaano aynu wax wada qabsano aynu inta badan dhibaato badan baa ka taagan saxaafadda waddanka dadka jooga garab badan bay u baahan yihiin marka waxa kaliya aan dareemo waxay tahay rag fara badan halkan aan ku joogno iyo dad kale badan oo wadankii jooga in aynaan la shaqeyn oo doorkii iyo mas'uuliyad badan oo looga baahnaa ay yani dayacan tahay marka taana dhowr jeer waan kala hadlaa rag asxaabta aan nahay waxaan idhahdaa bal wadankii aan ka warhayno iyo wariyaal badan oo duruufo adag ku nool iyo duruufo adag ku shaqeeya jira oo inaga duwan ilaahay iyagana ha nabadgeliyo qof kastana meeshuu doonayo iyo muraadku leeyahay Allah fududeeyo balse waxaan oran lahaa wada shaqeyn aynu la shaqeynayno dadka mudan in lala shaqeeyo inaga maqan aynu ka warhayno taasaan soo jeediyaa laakiin warbaahinta ugu fiican waxaan nasiib u yeeshay baan marka qaar inay magaalada kula joogaan ma sha Allah aad ay u mahadsan tahay wuu mahadsan yahay Irshaad Cumar manifesto oo ahaa kaas khaasatan waxaan aad uga mahad celinayaa tusaalihii iyo taladii wanaagsaneed uu soo jeediyay wariyaasha Soomaaliyeed kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga inta isku xirnaadaan inay iska caawiyaan waxyaalaha baahiyaha ay u baahan yihiin aniguna waan ku dhiirigelinayaa barnaamijkan la mid ah inta aan ku kulmi doono waa anigoo ah Asmar Degan oo idinkaga tagaysa sidaa iyo nabadgelyo amaana Allah هذا ما سنترشد adiga mudan